السلام عليكم اخواتي، welcome to الى جنال احبابي في لامات. waxaa inii wadaa sidii noo socotay casharkeeni caruurta cuntadooda breakfast quraac ama casho kaarta oga dhigan kartaa, laakiin quraac waa midaan maasha Allah oo vitamins ka helayo. alaabtan waa alaab vitamins laga helayo aan soo baaray maasha Allah. marka alaabtan saan waaye axbaabi fillah. inta waxaa ii yaala tufaax aan soo jajaray, hal xabo tufaaxa, 3 xabo timira, 2 qaado boorasha iyo bataatiga macaanka. bataatiga waxaa waaye kuwan waaye bataati macaankan waaye bataati macaankeena Soomaaliya oo ma ujeedaan waaye, iyo hal xabo tufaaxa, 3 xabo timira, boorashkan waaye waa laga heli karaa inta aan oo dhan Afrika. axbaabi fillah bataatiga waxaa ku jira vitamin C, waxaa ku jira vitamin B6, waxaa ku jira vitamin B1, waxaa ku jira vitamin B12. B12 ta aan raadinayna waaye, iyo vitamin waxaan ku sheegay A ku jirta. bataatiga waa waxa cajiibka waxa dhan alaabta dhan wata. tufaaxana vitamin C laga helaa, timirtana iron iyo wax kasta laga helayaa. marka alaabta la isku karinayna quraac maasha Allah wax balaay ka dhacday noqonaysa. caana lagu karinaya waa la shiidaya, cunuga subaxii ku quraacinaysa. waxa way 6 months ilaa 6 year waa siin kartaa, no problem, wax dhiba kama jiro. gabdho badan waxaa arkay cunug 6 bil jira ma siin karaa, cunug 2 bil. carruurta yariska quraac loogu tala galaa jirta ilaa 6 months ilaa 12 months. taas daartan waa inii soo gelinaa, laakiin hadda general away waxaan hadda ku soconayno. axbaab fillah digsiga waxa ku shubanaya bataatiga intaas ma ka badsanayay. gabal yar xabadan dhan maaha inaan samaysanayno weynta, wax yar aan samaysanaynaa. waxaan ku karinayaa koob caana. markuu karo oo bislaado alaabtan kale aan ku daraynaa, waa isku soo noqonaynaa insha Allah. fillah saanu noqday bataatiga caanaha u gaabinaysa dabka saanu noqonaa. marka wax yar waxaan waaye in wax yar u dhiman, laakiin alaabta aan ku daraynaa inay sii bislaato ah. soo marka waa inaan hadda ku sii darsano tufaax yar hadda ku darsanaynaa. dabka u gaabinaysa because ma rabno inuu maxaa ka sheegay caanaha intay karkaraan waxa dhan ay daataan. dabka tartiib u gaabinay. boorashka ku darsanaynaa 2 qaado. tufaax waa ku darnay, timirta waa ku darnay, maxaa ku sheegay boorashka waa ku darnay. hadda is dhaado wax yar way adag yihiin, caanaha ku kordhisan kartaa. ana xoogaa fiican sameeyay, laakiin waa iska yareen ka dhaan laa baase. marka hadda dabka u kordhina maadaama alaab badan ku daray, waa isku soo noqonaynaa insha Allah. say noqdaan mishiinkan gelinaynaa. axbaab filaawaatan asaanay noqotay alaabtii. marka waxaan sameynaynaa waa soo miiraynaa, waa soo shiidayaa. markaa soo diyaariyaa isku imaanaynaa. timirtii, tufaaxii, bataatigii, wixii oo dhan way maasha Allah saasay isku noqdeen. marka karka laga badiyo mushaaladii karka laga badiyo ma fiicna, nafaqada ka dhimanaysa. soo marka hadda waan soo diyaarinayaa insha Allah. axbaab filaa waa soo shiiday alaabtii cuntadii babyga maasha Allah saanay noqotay. way karkaraysaa karaal ahaada. hadda hore ka shiiday saanay noqotay alaabtaasay noqotay. saanay noqotay smoothkaasay noqday maasha Allah. taas cunuga ilaa 6 months ilaa 6 year waa siin kartaan. waa tufaaxi, waa timirtii, waa bataatigii macaanka ahaa, iyo boorashkan maasha Allah, iyo koob weyn oo caana ah. marka isku bislaadaan mishiinka gelinaa, waa shiida dhab cunugaaga ku siinaysaa. wax alaala wixii vitamin adduunka jiro oo dhan ku ururtay maasha Allah. axbaabi fillah saas uga faa'iideysta alaabtaasay noqotay. waxaa ka baahantay mala alaabta dhalooyinka lagu gadaayo oo 1 year 5 year 3 year 2 years dhalooyinku jiro oo expire waxaas oo carruurta ku jiraan kansar aba ilmo ka qaadanaa la. alaabtaana ka qatarsan wax gurigaaga ku samaysatay ama maasha Allah ilmahaagana vitamin ka heli karaan, adina maasha Allah happy ku ahaanaysaa niyadaada. axbaabi fillah gabadha hadda ka hor Soomaaliya waxay igu soo dhahday cunugayga carradu cunaa iyo wax sineeda ama carruurta hadda artiin carro cunaysa ama wax cunaysa oo loogu talagelin waxyaalaha uga saxda waa ilmaha ay ka maqan yahay ironka. marka kula dadaala ilmihiina ina ironka hadda xataa wax iron ku jira siin karinin ironka waa inaad siisaa. macnaha in waxyaalo oo kiniiniyaal ama sharoobooyinka ama waxyaalaha laga helo haddii kale cuntada laga helo aad siisaa. vitamin B12 kana muhiim waa ilmihiina kula dadaala. hadda bataatigaan oo kale keligiis intaa qabatiin axbaabi fillah fiiqdiin bataati waxaa ka dhigi kartiin chips camal dhudhub ka dhigtiin shiishiin cunuga gacanta u saari ka dhig cusbo inta u marisin ama wax cusbada ka dhaaftiin. marka cunugu jeclaana wuu cunayaa, vitamins uu ka helaa, waliba vitamin B12 ka asoo ka helayaa. wax badan oo vitamins ku jira bataatigaas ka warhaaya gabdhaha Soomaaliya Afrika jooga ilma inaan siisataan isku daya
haddaad tufaaxa weydaan laa xarash ha isku wareerinina waxaa siisaa timirta iyo bataatiga iyo mushaalida saddexdaas qasab waa ka helaysiin iyo caanaha haddaad tufaaxa weydaan haddaad tufaax heli kartin waa kas gabdhahan inta joogana way heli karaanba axbaab fila haddaana la socon jirteen laagta abta haddii kale saabskira saxaabtiina kale usii gudbaya cajaladaha way socon doonaan insha allah maxaan ku sheegaa in way sida adinka awsoo dalbatiin ay ku xiran tahay cajaladaha oo ilmaha insha allah gabdho badan oo stress garaynaya waa arkay oo macnaha xiisaynaya waa idiin soo gelin doonaa insha allah kuweena quruxdana way noo socon doonaan haddaad nala socon jirteen laagta abta haddii kale subscribe. Assalamu alaikum.